xusbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa si aad waxa uga hadlay talaabada ay xukuumadda Soomaaliland ku joojisay gaadiidka yaryar ee loo isticmaalo taksi ahaanta ee loo yaqaan fidsiga isticmaalkaasi ayaa dhalinyaro fara badan waxa ay ku maareyn jireen nolosha qoysaskooda taasoo haatan la sheegay in la joojiyay gaadiidkaasi yaryar Xamse Dabareex ayaa magaalada Hargeysa inooga soo diray warkan xusbiga mucaaradka ee wadani ayaa markii u horeysay ka hadlay kalfadhi ee dhawaan yeeshan golaha wasiirada Soomaaliland kaasi oo lagu magnuucayay fidista yaryar xogayaha arrimaha bulshada ee xusbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sadiiq Dhame oo maanta qayb ka mid ah warfideenka kula hadlay xarunta xusbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliland lagu curiyaaminayo iyo in shaqo abuur ay u ahayd dhalinyarada Soomaaliland fidista yaryar isagoona hoosta ka xariiqay in dhaqaalaha Soomaaliland ay kaalin weyn ka qaadan jirtay fidista yaryar curiyaaminayo dhaqaalaha Soomaaliland iyo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland gaadiidka fidista xukuumaddu ay sheegtay in la joojinayo soo dejintooda waa gaadiid laf dhabar u noqday dhaqaalaha Soomaaliland maanta waana gaadiid ay shaqo la'aantii iyo tahriibtii iyo bilaa camalkii ay kaga badbaadeen boqolaal iyo kumanaan dhalinyaro ah waxaana gaadiidkaasi maanta dabka u shidaan ku dhawaad 30,000 oo qoys sida aanu xogta ku hayno waxa habboon in la yareeyo gaadiidka raaxada ee loo yaqaan V8ka ee ay xukuumaddu ku xaragooto ee boqolaalka kun ee dollar la soo siiyo ee inaga isticmaala shidaalka qaaliga ah ee aadka u badan ee aan loo baahnayn in la soo dejiyo madaxweynaha Tansaaniya wuxuu ku amray golihiisa wasiirada isagoo u danaynaya shacabkiisa in dhammaan la xaraasho gaadiidka V8ka oo ay wasiiradu ka haystaan halka bedelkeeda gaadiidka kalfadhigii lixdanaad ee golaha wasiirada Soomaaliland lagu mamnuucay halka waxaad ka arkaysaa labada xukuumadood iyo hogaanada dunida ee dadkooda danaynaya iyo kuwa iyagu danahooda ka shaqeynaya farqiga u dhaxeeya ayaa halka ka dareemaysaa xukuumadda waxa u yaala go'aamo ka waaweyn inay fitis joojiso iyo inay dhaqaalaha curyaamiso iyo inay shaqo la'aanta dub u sii ballaariso waxa u yaala inay wax ka qabato baahiyaha asaasiga ah sida caafimaadka wada xumida biyo la'aanta iyo waxbarashada aan tayada lahayn ayaa u yaala xukuumadda wuxuu sheegay wasiirka jidadku gaadiidka fitistu inay amniga wax u dhimaan waxaan u sheegaynaa wasiirka gaadiidku dambiga ma galaan waxa dambiga gala waa dadka wata gaadiidka ama ha noqdo fitis ama ha noqdo V8 ama ha noqdo gaari kale inta badanna waxa dambiga lagu gala waa gaariga qofka gala laakiin de gaarigu waa gaari lagu shaqeynayo lagu manaafacadsanayo xilkuna wuxuu saaran yahay in dambiyada la yareeyo wax xukuumadda in dadka wada gaadiidka xirfadooda iyo tayadooda iyo liisankooga iyo mas'uuliyadooda la hubiyo waa shaqadooda laakiin in la yiraahdo gaadiidka dambiga gala waxaan u aragnaa aqal xumo weyn waxay sheegtay xukuumadda iyo wasiirku in shilalka ay badiyeen gaadiidka fitista la mamnuucay taasi mid ma aha jirta maadaama oo gaadiidka fitistu aanay isaga goojin taraagyada oo aanay u bixin gobolada oo ay yihiin gaadiid magaalada uu ku kooban ma aha iyagu qaar u sababa waxa se u sababa shilalka wada xumida jidadkeena burbursan conditionka gawaadhida oo aanay xukuumaddu la soconin xirfadda wadayaasha oo aan la hubin lana eegin aan marna aanay taana xil iska saarin ma sakeenan gaadiidka shaqo abuurka ah ee fitista ee dhalinyaradu ay ku xoogsataa shilalka ee shilalku waxa ka yimaadaan meesha indhaha ka qarsanaysaan ee ugu horeysa jidadku waxa sheegtay xukuumaddu inay saxmadda iyo ay badiyeen gaadiidka fitistu suuqooguna uu ciriiri galay saxmadda waxa badiyay jidxumada wadooyinka ciriiriga ee maayaradu aanay ka shaqeynin golayaasha deegaanka ee aanay xukuumaddu xil iska saarin dayaca weyn ka muuqdo saxmadda waxa abuuraya nidaam darrada suuqyada ka jirtay inaan la sameeynin istaano goobo loogu tala galay
private transportation maadaama aanu jirin public transportation xukuumaddu ay diyaarisay kaasa abuuraya suuqana may ciriirin maadaama suuqeenu yahay inaga suuq xor ah suuqa xorta ahi ma buuxsamo waxa buuxsamo waa monopoly market suuqyada xorta waa lagu tartamaa waxa ku tartama ganacsatada waxa ku tartama dadka soo dejinaya gaadiidka iyo waxa weeyaan ayaa ku tartama anagu go'aanka xisbi ahaan waxaan u aragnaa go'aan aan waafaqsanayn shuruucda go'aan aan waafaqsanayn danta dadka go'aan aan ka turjumaynin baahideena xisbi ahaanna waxaanu aaminsanahay in talaabada xukuumaddu si degdeg uga noqoto Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa